Wasaaradda Dastuurka Xukuumadda Federaalka ayaa maanta oo Talaadaha magaalada Muqdisho waxa ay ku soo bandhigtay hay'adaha ku guuleystay barnaamijka Aqoon Iswaydaarsi ee ku saabsan fulinta Ololaha Adeegyada Wacyi-Galinta Dadweynaha iyo Duubida Dhacdooyinka la xiriira dib u eegista dastuurka. Wasaaradda ayaa sheegtay in shirkadda Aqoon ay ku guuleysteen barnaamijkaasi oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka kala socday dhinacyada Wasaaradda Dastuurka, Aqoon mas'uuliyiin kale. madaxa maaliyadda Aqoon Xasan Fanax ayaa sheegay in maanta ay tahay maalin muhiim ah loona baahan yahay in halkaas laga sii wado barnaamijka Ololaha Adeega Wacyi-Galinta Dadweynaha ee qabyaatirka dastuurka. saxaafadda Soomaaliyeedna waxay qayb lixaad leh ka qaadan doontaa wacyi-gelinta bulshada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan iyo gaarsiinta processkan ama hanaanka dib u eegista dastuurka ee ay hormuudka ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya. shirkadda Aqoon waxay fursadan u tahay mid ay bulshadeeda ku gaarsiin doonto heerka uu marayo dib u eegista dastuurka, guulaha la gaaray, fariimaha ay tahay in bulshada laga soo gudbiyo hay-adaha wada dib u eegista dastuurka. howlahaas oo dhanna waxaan rajaynaynaa in insha Allah aan qayb lixaad leh ka qaadano. waxaan rajaynaynaa in fursadan ay noqoto mid wax weyn ku soo kordhisa dabcan dastuuradii hore ee Soomaaliya ee la soo sameynayay waxaan rajaynayaa ma jirin fursad noocan oo kale ah oo ay saxaafaddu u heleen in ay qayb ka noqdaan. agaasimaha wacyi-gelinta Wasaaradda Dastuurka Cabdiqani Cali Seed ayaa sheegay inuu aad u mahadcelinayo shakhsiyaadka ku guuleystay adeega oo ay soo bandhigeen ee la xiriira dastuurka kumeel gaarka ah. saxaafadda sidaad la socotaan waa aaladda afraad ayaa la yiraahdaa adduunka marka la yiraahdo powerka. sababta ay u noqotana waxay tahay inay gaarto a lot of audience ama dad fara badan. sidaa daraadeed wasaaradda arrimaha dastuurka ayadoo ka duuleysa istiraatiijiyadii wacyi-gelinta ay diyaarisay waxay doonaysaa in ay mataqaanaa saxaafadda horta u marsiiso arrimihii wacyi-gelinta ku saabsanaa arrimaha dastuurka. haddii ay ahaan lahayd in qofka muwaadinka ah laga wacyigeliyo xuquuqaha iyo waajibaadka uu saarayo dastuurka iyo sababta ay muhiim u tahay in ummaddu ay yeelato dastuur la wada dhigtay oo lagu wada heshiiyey. wasaaradduna waxay bilaabi doontaa ololaha baahsan ee wacyi-gelinta bishan November ee fowda nagu soo haysa. ololahaas oo lagu beegsanayo in la gaaro dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. saxaafadda waa sidoo Cabdiqani sheegay waa hay'adda waxaa la yiraahdaa kaadati saxaafatu an takuna as-sulda raabica. macnaa waxa waayo waxay ku sigatay saxaafadda inay noqoto awoodii saddexaad. waxaa la yaqaanaa dowladda saddex hay-adood inay tahay inay noqoto hay-ad afraad. macnaha loo leeyahay muhiimadeedana waxay ahayd sida xiriirka iyo dadweynaha la leedahay bulshada iyo dowladda isku xirkeedu. marka saxaafadda ahmiyad weyn ayay u leedahay dowladda Soomaaliyeed iyo bulshada. maxaa yeelay saxaafadda wixii dadka ay tabanayaan inay gudbiso qanawaadka la marahayo oo dhan inay wararka ay ku gudbiso. laakiin dhaqankii saxaafadda iyo xeerarkii saxaafadda iyo sidii loogu talagalay iyo bulshadeeda waxa wanaagsan inay gudbisaana asal ah. Wasaaradda Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa wada qorshe ay ku doonayso in ay ku qabyaatirto dastuurka iyadoo meelo badan oo dalka ah ay ku qabatay shirar arrimaha dastuurka looga hadlayo. Cabdi Majiid Cusmaan, Goobjoog.